السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتي maanta waxaynu ka hadli doonaa application cusub. Application-ka daawadayaal aan maanta idin hayaa waxa uu ku saabsan yahay ama aad kaga faa'iideysan kartaa inaad duubato codadka call-iska WhatsApp-ka haday noqoto call-ka caadiga ee mobile-ka haday noqoto wax walba oo aad call ahaan u qaraacayso inaad ku duubato ayuu ka caawinayaa asxaabtay hadaba application-kan magaciisa la yaqaan QACR. application-kan linkigiisa Play Store-ka video hoostiisa ayaad ka helaysaa. Daawadayaal hadaba application-kan haddii aad rabto iminkoo kale inaad cod ka duubto qof ku soo qaraacay haday noqoto WhatsApp-ka haday noqoto call-ka caadiga ee mobile-ka number-ka haday noqoto email-da wax walba call la xiriira ayaa uu ku duubaya codkani application-kani isla markaana adiga oo aan taabanin haba yaraatee isaga ayaa marka uu codku soo galo isaga ayaa si automatically u duubaya marka uu codku go'ana ama qofka aad la hadlaysay uu go'ana isaga ayaa si automatically isku jaraya. Marka application-kan wax dhib ah kaagama baahna waana application-ka uu maanta video ku saabsan yahay. Hadaba daawadayaal aynu gudagalno video-ga intiisa kale ee ku soo dhawaada. fadlan daawada inta aynan bilaabin casharka haddii channelka hore subscribe saarin subscribe taabo kabacdi markaad subscribe saarto waxaad sii taabataa jeliska yar ee notificationska si video walba cusub kuu soo gaadho. haddaba daawadayaal markaad soo dejisto kabacdi application-ka ugu horreynba sidaas ayaad ugu dhufanaysaa. daawadayaal haddaba options ayuu rabaa in la yara saxo waxaan ku dhufanaa saddexda xariijimood ee halka sare kabacdi waxaanu eegaynaa inay enable recording halka ay ku qorantay halka sare ee iminka onta ah inay onta ay eegsi haddii ay on tahay waad iska daynaysaa oo sidaas ayaad ku daynaysaa. haddaba mar labaadkan waxaad ku dhufanaysaa halka recording ku qoran tahay kabacdi waxaad kasoo dhufanaysaa phone recording audio source. markaad ku dhufato iminka voice communication weeyaan waxaad ka dhigaysaa microphone warning loudspeaker enabled by default option-ka ugu dambeeya ayaad ka dhigaysaa kabacdi markaad ka dhigto waad iskaga noqonaysaa. markaa daawadayaal aniga iminka internet iguma jiro waxaan idinku tusi doonaa call-ka caadiga oo WhatsApp-ka ayaan idinku tusi lahaa haddii uu internet xidhiidhsan yahay ma xidhiidhsana imka. marka waxaanu qaraacaynaa halkan lacagta laga eego ninku lacagta ku sheegayo marka ninka codkiisa ayuu duubi doonaa weliba anoon taaban ayuu soo geli doonaa idinkuu fiirsada. daawadayaal waad arkayseen anoon taaban ayuu isla markiiba soo galay oo markuu call-ku sidaa u soo galay isaguna uu ka dambeeyay uu la socday markuu saa call-ku uga baxayna isaguna uu ka go'ay. marka daawadayaal codkaaynu duubnay bal aynu ka dhegaysano application-kii ayuu ku duubay wakaa 1 2 ayaa codkaa ka duubay kadib saas ayaad ugu dhufanaysaa kadib lacagtana waxay dhacaysaa 7 waad aragtaan codka oo sidiisii ayuu ku duubay qofkii aad rabto inaad cod ka duubtana sidaas ayaad uga duubi kartaa oo wixii aad kula sheekaysanaysay iyo wixii aad lahayd adiguba iyo wixii uu qofka kale lahaaba labadaba waa uu duubaya. marka daawadayaal video-gan maantana application-ka ay ku saabsanaa haddaba daawadayaal haddii ay fikradan ay ku qancisay please like saar video-ga sidoo kale haddii aanad channelka hore subscribe saarin subscribe saar sidoo kale weliba haddii aad rabto inaad asxaabtaada u sheergarayso video-ga u sheergaraysa iyaguna uga faa'iidaan video-gan maantana intan ayuu ku egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.